waa bilowga guul weyn oo ay muddo badan sugayeen bulshada reer Galdogob. Waxaa muddo badan la sugayay in magaalada Galdogob ay mar uun yeelato aeroboort. Bulshada ku nool degmada Galdogob ayaa dhibaato badan ku qabay aeroboort la'aanta, iyadoona safar saacado badan qaadanaya iyo waddo rafa ay ku mari jireen inta u dhaxaysa Gaalkacyo iyo Galdogob. Balse maanta taa ayaa meesha ka baxday oo waxaa aeroboortka degmada Galdogob ka soo degatay diyaaradii ugu horeysay ee kasoo duusha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waana dhamaystirka wejigii koowaad ee aeroboortka degmada Galdogob, iyadoona dhowaan la dhamaystiri doono qaybaha kale ee dhismaha aeroboortka. Aeroboortkan oo ah mid lagu dhisay isku tashi bulsho ayaa si weyn waxaa gacan uga geystay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Duraan Axmed Faarax. Dadweynaha kala duwan ee ku nool degmada Galdogob ayaa soo dhaweeyay wasiirka iyo wafdigiisa, waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay agaasimaha aeroboortka Galdogob isla markaana gacanta ku haya isagoona ka sheekeeya howlaha aeroboortka iyo waxyaabaha u dhiman. waxaana ayagana dhankooda ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay madasha. aeroboort waa laga dhisi jiray waddanka, laakiin waxay gooni uga tahay magaalada aan muddo ka badan 30 sano bay ku taamayso. marka waxyaabihii ugu badnaa intaan hawsha wadnayna qabsaday waxaa ka mid ahaa waxaa la oran jiray aeroboort lama dhisi karo. dhismihii markuu bilowday waxaa la goormaa diyaaradda ka soo degaysaa, hadda caawa u dambaysay daqiiqaday ka soo degaysa noo sheeg baa lalaha. marka waa wax ilaahay lagu mahadiyo. waxaan halkan codsigayaga wasaaradda wasiirka hogaaminayo iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland meeshaan baahiyaheedii weli waa qabyo. cid walba door ku yeelan karta waxaan rabnaa inay indhaha furto ka qayb qaadato. waa maasan yahay wasiirku iyo dadkii reer Galdogob ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan waqtiga iyo dhaqaalaha ku bixiyay. waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno. waxaan leenahay laba jibaar. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ilaahay baa mahad iska leh. maantay marka hore waxaan soo dhawaynayaa anoo ku hadlaya afka ummadda reer Galdogob ee wafdiga sharafta badan oo xamar nooga yimid oo noogu yimid shaqadii Galdogob ka socotay inay nala indheeyaan. magacyadiina ma koobi karo, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. laakiin waxaan idin leeyahay anoo wakiilka ummadda aad farahooda iyo indhahooda u jeedaan ee soo dhowaada, gacalnimo ku soo dhowaada, saaxiibtinimo ku soo dhowaada, waxqabadkaad waxqabateen ku soo dhowaada. in laydinka jecel yahay degmada Galdogob oo haddii ilaahay ku ron yahay aad karaamo ka leedihiin oo waxaad u qabateen inaan ka abaalgudno aan rabno. ku soo dhowaada, gacalnimo fara badan ku soo dhowaada. wixii ka dambeeyana hadda waxay la tahay inaad nala dhammaystiri doontaan. intaas waftigaan kaga baxayaa. khayr badan baan idin rajaynayaa. ummadda reer Galdogob oo meesha isugu timid waxaan leeyahay mar waxaan odhan jirnay aeroboort ma haysanno, marna waxaan odhan jirnay aeroboortka dhismihiisu waxba kama jiraan, marna laftigiisaan raadin jirnay. hadda maanta haddee waxay la tahay xaqiiqadiina waa taagan tahay. aeroboortkiina wax yar baa ka haray. laakiin weligeen adduunka intaan ku noolnahay ma qof baan wax ka sugaynaa, ma ciridda iyo boorkaynu dhoobnaanaynaa. sow inaynu ummad jidha oo u baahan waxay u baahan tahay jeebkoodana ku jira inaan qabanno oo aan ciridda ka dareerno oo aannu haddii la kuuraya aeroboortka dhisanno oo aan jeebka furanno dibad iyo daakhil oo aan ummadda horay u madhay ka mid noqonno. ma dhib bayna ku haysaa? ma dhib bay reer Galdogob bayna ku haysaa? kuwa safarkaa ma dhib bay ku haysaa? kuwa dibadda jira oo maantana daawanaya in diyaaraddiina taagan tahay annaguna aannu ciridda u taagannahay farxad daraaddeed saxansaxada iyo udgoonka ka soo uraya aeroboortka degmada Galdogob inay nagala qayb qaataan. arrintaas ma isku raacsannahay? ma isku raacsannahay? waa inaan jeebka furnaa, waa inaan ciridda ka dareernaa, waa inaan aeroboortka intaynoo hadhay dhammaystirnaa, waa inaan hadda wixii ka dambeeya har qabow iyo kuraas qabow iyo aeroboort qabow oo aan boor lahayn waa inaynu hadda ka bacdi isugu ballannaa oo isugu nimaadnaa. arrintaa ma ballan qaadnaa? ilaahay baan waxaan weydiisanayaa ilaaha weyn baan waxaan weydiisanayaa oo mahadda iska leh inuu naga aqbalo
sida ayraboorka u aqbalay inaannu jeebkayaga inta furno oo isku tashanno aan ayraboorka inta ka hadhay dhammaystirna si degdeg ah ilaahay baan weydiisanayaa odayaasha weliba waxaan leeyahay jeebkeenna inaan furno dadka innagaa mas-uulka ah dadka innagaa odayaal u ah dadka innagaa waxgarad u ah ganacsatada iyo odayaasha iyo degmada iyo indheergaradka waxaan ka codsanayaa iyo gabdhaha sharafta badan oo anigu aan ogahay inay lahajaaladayna kaga fiican yihiin ayraboorka ma dhisnaa intaasaan kaga tegahayaa khayr badan baan iniin rajaynaya haddii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ayna tixgelinayaan dadkayaga farihiisa way arkayaan garashadiisana way u jeedaan meeshaan u soconnana way u jeedaan haddayna rabaan oo ay rabaan reegaldagob iyo ummadda magaca meesha aan ku taagannahay Soomaali baan ku taagannahay Soomaalida meesha aan ku taagannahay maanta waxaan codsi uga soo jeedinaynaa hadday noo soo saari waayaan Duraan Axmed Faarax dib baan ugu laabanaynaa wixii naga dhaca oo xaggoodaana ayagaa mas-uul ka noqon doona inta reer Galdogob oo halkaan isugu timid maanta magacayga waxaa la yidhahaa Xamdi Jaamac Cali waxaan ka imaaday waddanka Sweden Duraan markuu dhagax dhigay aeroboorkan waxaan ku iri Duraanow aeroboorkan diyaaradda ugu horeysa oo ka soo degaysa waan imaan doonaa anigana farxadeyda lama qiyaasi karo waxaan leeyahay bulshaweynta reer Galdogob way dadaaleen intaana imaadeen intaasoo sano 30 sano iyo ka badan dawlad la'aan ah dadka reer Galdogob xaqooda ma helaan ayagoo ka tirsan dawlad goboleedka Puntland wala dawlad federaalka Soomaaliya dadkan ayaga isku tashaday ayaga isbitaal dhistay marka aeroboorka isbitaalka dhisteen aeroboorkana wax ayaga dhistay wax badan uu u baahan yahay inay noo dhameystiraan ayaan ka codsanaynaa dawladda federaalka lambar 1 lambar 2 qurba joogta iyo deegaanka dadka u dhashay waxaan leeyahay farxadda maanta dadkaanayto idinka idin sugayaan waa inaa isku tashatiin waa inaa aeroboorka dhameystiratiin waa inaa isgarab qabatiin oo isgarab istaagtiin aad iyo aad u mahadsantiin farxadayda lama soo koobi karo waa mahadsantiin wax badan baan soo marnay ilaa 10 bilood inta ku dhowaan waxaan waday aeroboorka hawshiisa waxaan hadda heer bay soo maraysay maanta in lugtaba ku bikacsato waad u jeedaanin dayaaradii baa soo fariisatay ilaahay waa nala garab galay annaguna waa dadaalay hadalkii badankiisina waxaa dhameeyay basbaas ninka iga horeeyay odaga ahaa dhameeyay waxaan leeyahay aynu sida waxa ka haray aynu dhamaystirno aynu gacanaha isqabsano ummadana aan ku soo dhaweyno dawlad iyo shacabba waa ku soo dhaweynaynaa aeroboorka dawladdeeda waa ku soo dhaweynaynaa shacabkana waa ku soo dhaweynaynaa ehelkana waa ku soo dhaweynaynaa darsiyaashana waa ku soo dhaweynaynaa waftidana waa ku soo dhaweynaa waxaan oran lahaa kelmado yar oo markii soo dhaweynta aan ugu talagalay markii diiqu dhawaaqay markii diiqu dhawaaqiyo dharaartii dhuhurkii muddadii ka dhaxaysay baan dhabayaasha istaagnayo dhaqankii odayaashii dhaqankiyo dhalintii yaryaraydiyo garbihii gabdhihiiba dhammayno soo dhowaada lahayne sidii dholka gudo ka dhegsiiyey laabaan idin dhowraynabe soo dhowaada lahayne soo dhowaada dhammaantii muddo yar ayaa ka soo wareegtay maalintii aan howdka ku kulmaynay macnaha wasiir Duraan uu ballan qaadayay in Galdogob uusan badna lahayn hawadana uusan ka xirnaa doonin maanta waxaa farxad ii ah in ballantii oo rumowday aan indhahaygu ku markhaatuga noqda ayaa farxad weyn ii ah weli ma dhicin historiga aviationka Soomaaliya in garoon dhismo ka socda in aan dayuurad u fasaxno weli ma dhicin maantay markaan Muqdisho ka soo baxaynay counter ayaa lagu furay markii ugu horeysay magaca Galdogob marka counteradii furnaa Galdogob asaa ka mid ah
ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane Duraan Axmed Faarax isagoona faray bulshada qaybaheeda kala duwan inay si weyn uga qayb qaataan qaybaha kale ee ka haray dhismaha airportkan inuu hirgalo oo shaqeeyo ama airport noqdo ama lagu fikiro dad badan baa yaa ka shaqeeyo oo ka fikiray marka ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo waxaan rabaa inaan mahad celiyo saaxiibka Yuusuf Diiriye Haybe oo ninkaan meeshan jooga in airport ay Galdoba yeelan karto Galdoba laga dhisi karo ninka ugu horeeyay ugu dhaliyay oo maxaa la yiraahdaa in la sameyn karo maskaxda soo gali asagoo ahaa khayr Allah siiyo anigu inay airport ku waxaan islaha wax weyn oo dawladda dhisayaan weeye ma ahan inuu shacab dhisi karo wadda dhisan kale ilama aysan ahayn isagii team la yiraahdo Eurosom runtii xoog waxay ka qaateen gacan xoog leh inay hawshan hirgalo airportkan aad baan uga mahad celinayaa kulligood waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo teamka halkan ka shaqeynayay oo waqti badan galiyay oo maxaa la yiraahdaa waqti kasta oo hogaaminayay sida walaalkay Cabdinuur Saciid ka mid yahay Xaaji Muuse marka kulligiin aad baan kaga wada mahad celinaynaa sidii loo sheegay waxaan rabnaa airportkan hadii la yiraahdo hadda waa intii basic ahayd baa socota oo asaasiga ahayd airport qurux badan oo rabo sida maarayu sheegay hadii la rabo Turkish Airlines iyo diyaaradaha ka waaweyn iyo qadari kuwa xamar ku dagaa inay ku dagaan hadda waa la samaysan karaa oo hadii la yiraahdo hadii la tashado oo la isku raaco ilaahayna waa raali ka noqdo waa gaari doonaa hadii la yiraahdo